بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديا كسر دوادة ورك تي في قاعد ورك وحودي أراني وحمد لك محمد ظاهرة قد بدأت كداون دونتار لوحة كمدا وقاس كبيلها سيدا أو باقدر مدحض الدلك يكوشر سن مقالة الدوسة مرين وزارة وحبرشة وصاحة امتحانات كسنة كان دولة الصومالية وبين سنة اللي بيدرس عيد الصومالية intaas waxay ahayd qodobadii warka ugu door karoona marka hore qadar adeega bulshada ah bartii aad rabtay buuqii horiyo kaga mayran bac waa boqordaajis oo bartaan bay ka furan tahay hool baa had weyn oo mukeyf lagu bineeyo bilcdiisu wacan tahay boqortooyo shiraysiyo maalmaha aroosyada maalin la isu soo baxay boqolaal qof qaadaad boqordaajis ka helaysa beegar iyo digaagii biisiyo shuwaarmiyo baasta noocyo badan iyo malaygii badeeniyo jibsigii barbaartiyo bariisko saldaata boqordaajisad ka helaysa cabitaan babaayo barafkii dhaxyaaliyo burtuqaal qabowba boqordaajisa ka helaysa bunkii iyo kafeygii bagayskii iyo cadayskii badow ha iska jooge boqordaajisad ka helaysa maqaayada boqordaajisa ayaa waxa ay ku samayn doontaa ilaa iyo 2 nooc oo adeegyo ah kuwaasi oo ka mid yihiin in gudaha maqaayada boqordaajisa lagu samayn doono casuumaadaha si la midana dibadda iyo sidoo kale goobaha dalxiiska lagu samayn doono casuumaadaha amaba xafladaha arooska iyadoo ay nashqadeyn doonto amaba ay ka shaqeyn doonto qurxinta iyo diyaarinta casuumadaasi boqordaajiso inta aad maqaaxida boqordaajiso ku jirto ayaa waxa ay ishaadu qaban doontaa meelo kala gedisan sida hoolkii shirarka iyo meelo loogu talagalay fadhiyada khaaska ah ee lamaanaha qoysaska iyo wixii la mid ah intaas waxa ku dheer maqaaxida boqordaajiso waxa aad ka heli kartaa cunooyinka ka baxa dalka maqaaxida boqordaajiso ayaa waxa ay ku taalaa ex-dahabshiil degmada Cabudwa ma wixii faahfaahin ah oo intaas dheer waxa aad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada ka muuqda isku soo laabasho wacan daawadayaal warkii oo faahfaahsan وقاسك بيلها سدا أيها بعض دريمة الضلك يكشر سن مقالة دوسم الرابع عاصمة الجلمدو سوى كل دردارمين يسكت تناسلان وقاسك جود بيلها سدا وقاس محمد وقاس أحمد وشير جرايد كوقبطي هو يسوي كيا لما قالنا عبد واق أيها واحد وكان الله دورة الموضوع كم إذا هاي الشركة ملاحظة الدولة قبلات ده هي الدولة اللي حي وقاس عنا هي عاصمة الدولة قبلات كجلمدو دوسم الراب وقاسك أيها واحد وملاحظة الضلك وقباقي إن أيلي مادان يسوي تنازل واحد ونسيقه كله هاستك حريقي إن ده شعبك أي ما أنت كسر جيدان وحيابها كسر بحياة مقالة الروسة مريب. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن ربالك إن باق ودرو جودهان ومدة الصوماليات ملك سعي جوجان إن أي شرفتو ذي كرامتو ذي عزقو ذي العين من نمد العين يسوع الشدان وحن كل ربا إن هالك باق وصف جديو مدحض الصوماليات dhammaan rag iskugu yimid iyo dumarba iskugu yimid magaalada Dhuusamareeb una fadhiyo masiirka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan codsi halkan u soo jeediyo guud ahaan dhammaantood walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa oon Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hortiisa idinku weydiisanaynaa inaad u turtaan ummadda shacabka oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo meeshii la ogaa oo 30 sano aan gudaheed aan ku jirnay maantana aad ogtiin meesha aan joogno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo gaarsiiyay waxaan rabnaa inaad u turtaan shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada soo maray inaad u tanaasushaan oo dhibaatada iyo isqabsiga siyaasadeed oo isku haysaan inaad ka tanaasushaan waxaan mar labaad baaqiga ku adkeynayaa madaxda Dhuusamareeb fadhido inay ka tanaasulaan danaha gaarka ah mid siyaasadeed iyo mid kalaba ayna aadaan danta guud ay ummadda Soomaaliyeed waxaa ogtihiin in shacabweynaha Soomaaliyeed ay maanta ay indhahooda soo wada hayaan magaalada Dhuusamareeb iyo waxa ka socdo waxaan mar kale codsanayaa oo leeyahay madaxda Soomaaliyeed ka tanaasula waxyaabaha qalbigeena ku jiro oo gaarka ah una tanaasula ummadda shacabka Soomaaliyeed waxa xusid mudan maanta oo Soomaaliya ay karaamo iyo ciise ay ku yeelatay inay si gaar ah danahooda uga tashanayaan aysan cid maanta soo faragelinaysa ay kale aysan jirin dawladda shisheeye aysan soo faragelinayn ummad kale aysan soo faragelinayn taas ayaa sharaf iyo karaamo noo ah waxa halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa madaxda Galmudug
oo u horeeya madaxweyne qorqoor iyo guud ahaan shacabka reer galmudug oo run ahaantii si qurux badan oo sharaf leh u soo dhaweeyay walaalahoodii kale Soomaaliyeed gogoshan u fidiyay waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin reer galmudug waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu shirkaas ka miro dhaliyo midii maaragtay lagu guuleystay Allah ka yeelo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay indhaha ku hayaan waxyaabaha ka soo bixi kara shirka uga soconaya Dhuusamareeb madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Jalaqsan wararka TV-ga Caabudwaaq degmada Caabudwaaq wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa soo gabagabaysay imtixaanaadkii sanadkan iyadoo sanadkii lixaad ay qaaday dawladda Soomaaliya wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdilla Jaabiri iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Axmed Xasan Yuusuf ayaa maanta soo xiray imtixaanka fasalka 12aad ee shantii maalin ee la soo dhaafay ka socday dalka isla mar ahaantaana ay u fariisteen in ka badan 43600 arday agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Maxamed Xasan Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in imtixaankani uu ku soo dhamaaday jawi degan isla mar ahaantan ay ardayda Soomaaliyeed muujiyeen dadaalkooda ay ku aadan waxbarashada waxa uu ardayda u rajeeyay in natiijo wanaagsan wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdillaahi Jaabiri ayaa waxa uu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay ee ay ugu horeeyaan waalidiinta ardayda iyo ciidamada amniga oo qayb muhiim ah ka qaatay galida imtixaanka dawliga ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sanadkii lixaad oo xiriir waxa ay qaaday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare tan iyo burburkii markii dib loo bilaabay sanadku markii uu ahaa 2014 waxaana sanadkani dawladda ay ku soo kordhisay qaadista imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad Maxamed Cabdi Jalaqsan wararka TV-ga Caabudwaaq degmada Caabudwaaq dawladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamo u diraysa dalka Liibiya iyadoo baraha bulshada la isla dhexmarayay in dawladda Soomaaliya ay ciidamo u diraysa dalka Liibiya waxa dhawaanaan la isla dhexmarayay in Soomaaliya ay ciidamo u diraysa dalka Liibiya si ay caawiyaan kuwa Turkiga ka qaybka dagaalka ka socda dalka Liibiya ee lagu jiro General Haftar dawladda Turkiga iyo Masar ayaa la sheegay in ay ka qayb yihiin dawladaha ku loolamaya dalka Liibiya waxa uu Turkigu taageerayaa maamulka qaramada midoobay ee qoonsanta ee ku sugan caasimadda Tripoli Masar ayo dawladda kale taageersan yihiin generaalka laga adkaaday Khalifa Haftar dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beenisay war ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay dawladda Turkiga u adeegsan doonto dagaalka ay ka wada gudaha dalka Liibiya kaas oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa beeniyay arintaas Muscab Daahir Faarax telefishinka CW Caabudwaaq maamulka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlay fatahaada wabiga ee gobolka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo tuulooyin hoostaga waxa maalmihii la soo dhaafay wabiga Shabeelle waxaana fatahaadahaasi ay saameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ay bilaabeen dadaalo lagu xakameynayo fatahaadaha degmada Afgooye isla markaasna ay qorshayaashaas ay yihiin kuwa bilowday oo ay dhameystiri doonaan gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo booqday degmada Afgooye ayaa sheegay in ay dadaalada xoojin doonaan sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha markasta soo laalaaban uu keenayo wabiga Shabeelle waxa uu sheegay in ay ka maamul ahaan ay dadaalo ku bixin doonaan wax ka qabashada arrimahani waxaana uu ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo shacabka ka barakacay degmada Afgooye iyo deegaanada hoostaga talaabadana ay qaadeen maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay imaanaysaa xilli madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in shacabka degmada Afgooye loo fidiyo gargaar degdeg ah Cabdi Axmed CW TV Caabudwaaq guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal warkii ood kala socoteen TV-ga Caabudwaaq warkan waxaan ila socodsiinaysaa aniga Cabdilaahi Maxamed Daahira tani intaan warkan warxay ku kulmi doono waa dhammaan bahda TV-ga Caabudwaaq isku duwanaa sidaas iyo nabadgelyo